صلى الله عليه وسلم وربنا لما بعنا أمليها مقالنا جوجنا ما أنت ووبح مدير عدو أو قعنت كويستي مرة معنا قضبات بدنا هذا إن كهذا ضد كديجان كدل كان أول شيء حان دريمة إن دمان هذا مقالة يكود مقيهين أو عدو أو كخي أو قف كنا ولا كرت أي سنجرين أو هذا مقالة بنان كده أي وده جوجان هرت دمان وحنا قعد سنة إن هذا كشعب كديجان كجوجو inay magaalada ku soo laabtaan dadkan deegaanka joogo waa dadka walaalihiina oo inii soo gurmaday oo nin walba in hebel loo yaqaano oo dad xoolo iyo gaalo in ku soo duushay iyo dad inay xoolihiina qaataan u socda meesha ma joogaan dad meel u laabahaana ma jiraan waxaan dareemaa dadka qaar inay isleeyihiin magaaladii waa la yimid waxaana laga noqaha waxaan noqday nin aan dhulka lahayn laakiin nin dhulka leh meel u laabto ma jirto dadkan socdo waa dadkii magaaladan lahay oo dhulkan ku dhashay oo qaarkood guryahan ay degan yihiin oo waalidkood aad tihiin dhammaanteen dad saasaan nahay dad meel u socdo ma lahan magaaladan cadawgu boqolkiiba boqol waxaan garanti u seehaynaa in cadawga laga difaacdo intana laguma ekaan doono hadduu alla yidhaha insha allah meelaha kale oo in ka haystaan oo ay ku sugan tihiin oo hadda noogu dhadhow sida u dhaqsaha badanaa lagu soo gaara hadduu alla yidhaha insha allah ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka sinaba looma kala harayo ayadoo nooc walba loo isticmaala laakiin waxa ogaatiin nimanka dhulkan qabsaday oo ku habsaday qaab jilcan kuma iimaan xoogay ku yimideen xooggaas ay ku qabteen looga saaraa haddana cashiro kulul waa loo soo dhigay waxna waa soo arkeen hadda inta hartana waa la dhameystiraa hadduu alla yidhaha insha allah waxba ha cabsanina marka nimanka niman jilcan waaye dadka shacabka bisay ka adag yihiin inay madax ka garaacaan oo xoolihiina ay qaataan oo gabdhihiina ay wataan oo adinka inay bahd dilaan oo sharaftiina iyo magaciina ay tirtiraan u socdaan waana hadda waaba tirtiraan baad say ku socoto maxaa yeelay waxaan ka dareemaynaa magaaladan weyninka ay qabto inuusan maanta hal qof uusan ku jirin wax inay harama jiraan waxaa la rabaa qofka bini aadankan intuu nool yahay sharaftiisa iyo magaciisa iyo sumcadiisa inuu ilaalsado sharafna meesha ma jirto haddii gurigaagii ku nooleed oo ilmaha ku haysatay inta lagaa bixiyo lagu yiraahdo duurka u bax ma soo gali kartid duurka markaa gashan inta lagaaga daba yimaado xoolahaaga lala baxo ayadana aan lagaaga sii harin beerta aad tagtay lagu yiraahdo falama kartid marka waxaan leeyahay intaasaan ku soo gabagabayhaa walaalayaalow magaaladiina ku soo laabta dadkan waa dadkiinni shacabkii walaalihiin waaye qof meel in kaga socota ma laha inta hartana waa dhammaystiranaa biidnillahi alkariim dowladdana waxaan rajaynaynaa inay ayadana boqolkiiba boqol sii garab istaagto dadkan wax ka maqana loo dhammaystira hadduu alla yidhaha insha allahu billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fariintaan idin dirayaa waxay tahay dadka deegaankan u dhashay meesha aan ka imaanna waa deegaan dad talahaa jooga oo nala jaara dadkaas xoog ayna lahayna adinku leedihiin ma jiryo mida adinku leedihiin ayagu lahayna ma jirto waxaa laydinka rabaa say u xuraystaan dalkooda inaad u xuraysaan maanta iyagaa aan soo marnay ayaguna berri inay sidaas oo kale dadka idinka xaggee ay idin dhex maraana laydinka rabaa farriintaan u diraya waxaa ugu xoog badan beesha karanla oo hadda aan ku jirno deegaanka ay ayagu leeyihiin farriintaan u diraya waxaa ka mid ah midka xamar joogo midka dibadda jiro midka iimay jiro iyo etoobiya deegaanka iyo dalka aan leenaha waa kanaha waxaana jooga dad aan meel ay ka yimidaan aan la aqaanin oo caddaan iyo madow isugu jiro oo adnebi waxaa laga rabaa inay halkan ay isugu imaadaan naf aynan ayagu lahayn annagu leenaha ma jirto xabadda waa wadnaa ilaahayna waa nugu guuleeyey berrina waxaa loo baahan yahay inaan ka safaysanno sida dalka gobol ou yahay inaan ku naalloonno inaan dalkiinni ninaan u dhalno ku naalloodo adunkuna ajadda ku carartiinna wax ka soo baxaya ma leh waa xayaatu kalabnimo waa doqonnimo waa daciifnimo waa aan wax jira inaadan ahayn farriintaan idin dirayo waa ku adkaynayaa waxaan noo madala ceelbuur webxo aan maanta hayno ceelbuur ilaa caga cadde caws weyne aan noo madala berri dadka suudad kalehoo beriga inta nagu fiirsada dagaalka berri isa soo sharaxi doonow waxaan idin leeyahay hadda kuleylkan inaad wax ka dhidhimisa waay oo dagaalkan wax ka gasho ninkaan dagaalkan wax ka gelinna berriyo isu soo lugo'in insha allah
inta dhimato inta dhimato allah u naxariisto waa shahiid inta nool oo naga hartana waa dalka dadkan wax ka noqon doona insha Allah wassalaamu alaykum wa salaam meesha anoo xoolan uma soo doono xilna uma soo doono labadaas dadka ku wararsan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim horta markuu waraysa ilaaha mahad iska leh aanu mahad celinayna guushan laga siiyay nimankan qawaariidta ah oo dalkeena dadkeena ku dheelay sidoo hortayba aan u sheegay nimanka odayaasha hortay hadlay waxaan leenahay maantay marka aan ka hadlo beesha degta deegaankan waa dhulkoodii magaalada ugu horeysa cagta ka soo saareen inta kalena oo dhiman tahay xoreeyna waxay ka rabtaa intaan hadda socota iyo inta u soo socota waxaan u maleynaa meeshan muddo 15 sano ay haystaan cadawga al-shabaab waqtigoodii waa dhacay xamaraan ka soo baxnaa annaga beledweyne nimid oo heer hiiraan oo dagaal xoogan ku jira oo nimanka mar hore iskala dagaalamay weli la ku wadaan u nimid wayna soo dhaweeyeen haddana waa nala socdaan reer Gurceel oo ayaguna mar hore ka sii horreeyay reer hiiraan oo shabaabka iska celiyay oo iska soo raacdiyay ayaguna garabkeena socdaan saddex bilood oo deeska meeshan ka han ku wada soconaa kamana hari doono nimankan insha Allah ilaa iyo meesha ugu dambaysa go'aamada aan soo qaadanay intay qof Soomaali dib ku hayaan inaan ka harnaan go'aansanay dhalinyarada naftooda soo hurtay oo soo aadan nimankan inay la dagaalamaan ayaguna aad u mahadsan yihiin niyadooduna waxaan maleynaa maanta in inta shala ka fiican tahay iyo inta daraad birina waxaan rajaynayaa inay ka sii fiicnaato intaas dadka deegaanada degan dad gunnimada u nugul waay runtii marka laga hadlo ummadaha kale meel laga dagaalamaa jira meel la isaga celshaa jira meel la isku soo baxaa jira ayagii deegaankan iyo guryahan tirada badan iyo magaalada weynka badan leh waxaan u maleynayaa in yaroo koobana ku dhex jirtay intii ay tiri ka bax magaalada hub waa haystaa waa ka warqabnaa toban wiilo tiraawada anagu gudaheena naga bixi weysiyeen naga tag waa laga waayay tan waa arnaa magaalooyinka daban oo arki doonaa hadii ay bal sida ay una yeelaan laakiin waxaan sheegaynaa anagu inaanan hadii ay dadnimo yeeshaan wax iska celshaan oo soo dhawi doonaa doqonimadii ay qabeen hadii si hayaan looma istaagi doono kuwa walaga dul qaada hadii ay yiraahdo waxaan rajaynaynaa waqtigooda inuu iska dhamaado kuwan oo aysan dad damba sii dhibi doonin niyad xumada iyo dulnimada ay qaadanayaan oo ku jirta dadka deegaanada degan iska baxshaan deegaanada qaar waxa la arkay qaybo ay haystaan qaybana maarta laga cishaday laakiin dad ay dhamaay la wada haysto oo hal qof wax iska dhaha ayna jirin oo kiimada xataa inta ordo oo maartay xamar orda iyo meel kale iyo magaalooyinkaas kale rag xoreysta doqonimaas wax la qaadan kara ma aha waxaan noo ballan iska celino gurihiina ku soo laabta cid ay tiraahda gurihiina kuma laaban kartiin iska celiya annaga ma aha ahaato laakiin gurihiina aad ka qaxdeen dad waayeela ilmihii wixii dhammaan in duurka loo bixiyo oo duurka ku yihiin waxa inta ka sharaf iyo qiimo badan inaad gurihiina ku noolaatiin deganaatiin cid ay tiraahda ka bax iska celisin waa diyuusnimo in adoo kale ana gurigaada ka bax ku yiraayay ilmahaada iyo duurka geey ayada wax dhib ku haystaa aan jirin inaad ilmahaada duurka u wado oo gurigaada ka qaxdo dadka deegaanada waa dadkeeni waa dadka inaan xoreyno oo nimid meeshan anoo xoolan uma soo doono xilna uma soo doono labadaas dadka ku wararsan yihiin waxaan u nimid meeshan inaan ka xoreyno waqtigan haysta maadaama ummadda deriska ay iska xoreeyeen in kaashadaan in garabsadaan ka sugeynay kaashii garabsiga waa weli waa uga fadhinaa diyaar u lanahay anaga inaan garabkooda istaagno oo ka celino nimanka qawaariidta oo shaadinta ummadda dhibaateeyay marka waxaan leeyahay cid kasta oo Soomaali ah nimankan aan iska bixino wax noo dhaamo ma arkayno aan iska rabsano aan iska wada celino nimankan waxaan rajaynayaa meeshan hadda maanta kuleelka iyo oraxda ka jirta nimankan in niman shaadin iyo waxa cadeynaysa meelihii laga xoreeyay gobolkan Hiiraan markaan imaanayna xataa meelo aan
dhulalka aan soo marnay meelaha qaar ay u haystaan soo marnay dhulkan hiiraan oo laga bixiyay markaa nimid ka bacdi inta hore looga baxshay ilaahay roob ku dijiyay oo barwaaqo markaa nimid intii aanu nimidna waa barwaaqo hadana ka bacdi roob ku daa meeshan jiilaalka oo aan wax badan roob aysan ku diin waxaan rajaynaynaa maadaama laga baxshay in ilaahay roob keeno waana arki doontiin insha Allah meeshii laga qabtoona ama laga raacdeeyo ilaahay barwaaqo ka dhigaa inay shaadin yihiin taas idin cadeynaysa marka waxaan leenahay nimanka iska celiya doqonnimada iska daaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته